سور وهذا أصحاب تقاليقة إنه سياسة كهذا لما إنه وحس تجدني وحس يريني يوح ميلها اسكال الله يوح كرسي سواها يستوح وينك ما قل وشيت كينو واحد وهرمركا شقا أبوريس دليرada yar iyo weyn ba loo sameeyo Soomaali cusub aan dhisano nin walba tuuladiisa magaaladiisa caasimadda area-da uu magaalo madaxda ka dhigtay state-kiisa uu magaaladaas hogaaminayso uu ku xisto tartan qaybta nadaafadda qaybta wadooyinka qaybta dhismayaasha qaybta xadaarada qaybta magaalnimada qaybta soo dhaweynta ayaynu maartay in Soomaaliyeed kula ballamayna inay ku tartamaan halka maanta maxaynu ka duubaynaa waajidka soddonka qaybtiisii kale ee marka dhinaca wadada toos marka soo eegta dhanka koonfurta aada muuqaalka kii ka horeeyay waxaynu aadnay dhanka bari ee jidka soddonka laakiin maanta waxaynu aadnay dhanka koonfureed ee jidka soddonka jidkani muuqaaladii ugu horeeyay 4 sano ka hor yaa ka duubay dii waxaan guriga kama dhisin hadda dib u baarta maalmo baan ku qayli jiray waxaan oran jiray war wadada la soo dego war wada qurux badan baa la dhisay war ganacsiga lagu soo badiyo war dadku xaafadaha inta ka soo baxa wada meherada laga dhigo hal isku yimaad maantana bal wadila daawan doontaan dabiya tacab ilaa barta ugu dambaysa ilaa in la soo wareegi doono waa wada meherada wada ganacsi waa la wada fadhiyo okay maalgashi badan iyo wanaagba ka muuqda wadadani waxay fariin bay diraysaa oo ah fariintaas oo ah Soomaali weyne yaa bal keeni kara wadadan wada la mida wadadan waxay ku taala caasimadda Puntland ee Garowe kowda August ka soo bilaabatay iyo wixii ka shisheeyay ilaa xagga sare waxay ka martaa magaalada dhanbiisa ugu wareegtay يعني وني كونفورتا ودعلت ساسي ولا وريته ساسي ودح بعضاي ودتي شعب قالك كدح بحايو إلا يتي قالك عيادي حق لي حق جليس كل مقالي ساو دح مرتا مركاسي كل ردان انتي كوريكتي بالشيء كل كلا وريكتايو هالكاسي كوريكتايو ودتي كوري بوساس عادي شكر ودعيس أساسي وارينجي رو مقالي ساو سو وريكس مركا ودداني هذا درتي لكن هو بحضي سيدا عطينا وموقتا لكن إذا قارين يربد مدينة يرقل لكن روبكوي كوال كعاد وير ونقبلنينو أبارب بدنو ومارتي مصومرني أيا سوويسا لكن ورابينتا يهوشاسي لوودو لولا بجبارو قوية جيلات بالله ورابيو ومهم سوفتوا درتو حكو بحدا بيها عفمات كودو لبارك وبحدا qayb waxa la kasay inay baxayso dheeraanayso qaybna ay maartay inta la baaro bal waxa khaldan geedka sii dhimanay bal waxa ka khaldan ma minerals ba ku yar ma ciida loo bedelayaa maaha inaad dad aqoon u leh way loo keeno way la badiyo dhirtii marka wadadani waa wado laba haado sidaas iyo laba haado sidaas xagga ganacsigii bay wax badan ka bedeshay horumarkii wax badan ka bedelaysaa mustaqbalka dhow iyo ka fogba waata meel walba dabaq dhismayaal dhanka xaafadaha aynu aadi lahayn wadayaabaysan guryaha quruxda badan dhulkani booskoo kale hadda dee dhibka jira waxaa weeye booskii baa la qaaliyey maanta ninkayga dhalinyarada haddaan damcayna boos aagaa ka iibsado haddii 40 lagu yidhaahdo mina dhagaa intan faraageliyaan carreed leeya 40 hay maqashiin 35 hay maqashiin 40 kun oo Soomaaliya ma waa 40 kun oo dollar wey haddaan ku soo shaqaysan ka keenay lacagta 35 kun igala hadlay 30 ha igala hadlay 20 ha igala hadlay war 10 dad igala hadlay 20 10 san ku ducayn lahaa aniga inta la midaba dhalinyarada inta dibadda joogta inta dalka joogta war 20 10 kun waxaan oran lahaa maayarkii dowladda hoose 20 ka magaalada lagu soo celiyo 10 kun oo dollar saasiba noo ku badan tahay xafadan aad bay qurux badan tahay mustaqbalka inaan daga wajaraa iyo xafada mubarak dhinaca wadada la saxan u baxda dhinaca wadada gaalka ay u baxda magaalada meeshaad ka degaysa ku sheegay
wadada gaalkacyo wadadan hadda in marayna jidka Sodonka sida ugu beegan gaalkacyo iyo koonfur ka deg magaalada bidix iyo midigba ka deg okay hoos u daadago dhinaca waqooyiga iyo aad wadada la saxanood iyo kor uga bax calitaan iyo xagga aad halkaana magaalada ka deg mubarak iyo halkaas uga bilow halka ka deg koodii ogos iyo buuq iyo bulsho iyo kuleelka iskala soo bax kor baa loo baxay laakiin tay maxay bala ka dhacday dhulkii baa iska kaleeyaa 40 35 15 حتى كبحين ماي dhulkaasi dhulka ugu qaalisan magaalada la taga 10 kun lagu celiyo 7,800 kun lagu celiyo magaaladu waxay bidix iyo midig galbeed iyo bari iyo waqooyi koonfur dhan walba cidima ma gaartay rooms qofku muqdisho in badan kullaba jibaar milay maanta say dadku diyaar ugu haya laakiin markii dhulkii la qaaliyay waxaa lacagta laga keenaya macnaha kii haystay xataa wuxuu leeyahay dhul aan xaq u leeyahay inaan helo macnaha iminka haddaan maayarka u tago ama dowladda hoose u tago nin muwaadin aan ahay oo inaan meesha degaan doonaya ku noolaado ku caruuro dhalo aniga xaaskayga halka ku noolaano amnigeeda iyo wanaageeda iyo jawigeedaan ka helo dhul baan u baahanay degnaa muwaadin baan nahay intaan dalka gashanay ilaahay baa og askarigii baa leeyahay lacagta miiska saareen anigu wax gaan joogaa warka ilaahay wararkan iyo jaawarka inaga soo afjaro dhulkan la qaaliyeynaya ilaahayna fahansiyo dadka inay xaq u leeyihiin oo muwaadiniin in lacag dadka laga qaado xaq qofkii dhisanaya qofkii aan dhisanayno khiyaar qofka dhisanaya qofka beerka samaysanaya qofka minax tabcayo wax gelinaya business ganacsiga furan faras magaalaha wadada labaad ta saddexaad minaha sakadaha dambe tuu doono xaq u yeelan muhiimadu waxa weeye qofkan diyaar ma yahay ma dhisanayo lacag laga qaado xaq bal igu malahay sababtoo ardullahi waa sacdal dhulka dhawrta ilaahay baa leh qof bilaadan ma ku oran karo dhulka anigaska hadayba noqotay maanta inuu bilaadan dhulkii sheegto oo adigoo muwaadina ka sheegto oo muwaadiniinta dhulka isku sheegta qof 20 wixii ka badan haysta waa mamnuuc ba hadalkaysa beertaas oo dhan heblaaya u xiran tahay bal waran oo xagan tagaya marka hadii heblaaya beertaas oo xiran ina meega xagu tagay ina qansa xagu tagay ina qura xagu tagay qof bay u xiran tahay qof baaba il qabatay ishaada meesha ugu dambaysa ka qabanayso qof u xiran tahay ina xagan tagay anigu wadul naflay baan dhul baan u baahnay xagan tagay xagan 40 ku ka keenay xagan 35 ka keenay xagan 25 ka keenay xagan 10 ka keenay maqay aqliga ma gasho marka sidaas loo dhaqmo dhulkii qaal la iska dhigo oo dhulkii la iska xirxirto waxay noqonaysaa inaan 60 sano ku gaarano jagaba ku lahayn meeshii aan jeclaayay ku noolaayay sida waxay siinayay sida ugu noolaayay sida amnigeeda ugu qayb qaadanayay dhiigga caamba diyaaran uga inaynu intaas oo hektar iska xirto ninna uu sideeda ka yahay gacmo maran kii ka wasdal shisheeyay intuu caruurtiisa la aaday ka soo noqdo yimaaday wadamacaynu waxa yar bal dhul yar qurux badan iibsado oo ugu dabaq yar bangala yar ka dhisto ku noolaado uu yiraahdo dalkayga ma ku soo faraxsano la yiraahdo bangiga 30 kun 40 kun ka soo saar 50 kun ka soo saar oo qoranaya ayaa macquul ma waran dib u diyaarado raacay dib u duulaya okay mid baa lacagta oo laga qaada 40 kun laga qaada 50 kun laga qaada 30 kun laga qaada 50 kun laga qaada kulay ganacsigan meesha ka furay oo shaqeyn way lacagta inta leeyna way ka shay uu kan niyo jiro baasaboorka iyo sarfiisu ku dhufto dalka uu ka baxay arimaas islaamkuna waa ka hadlay dad badan oo صاحب العقل هو كهلن شعب كهلو ترى مواطنين تعلو ترى إنتانو وهريو إنتاني جاي لم يتكاد ليرادن كور كسميني كوريا كيرا كوتشيرا يابان كل ستة بقولوا دور كيرا لين قاضي يا شقدي دي وحيس مكوديسو كيرا بقول ما يسنا بتكلم سودوي ليراد على سودوي شقاول بنو بانا وإحنا ديرته ما باني وحيران هلا وحقاته كيرا iyo cunto iyo masaariif iyo baqara deew kala yaa dalka xaq lagu wado
shaqana looma abuurin, dhulkiina waa lagu qaaliyey, gurigii waa lagu qaaliyey, wax walba cirkaasaa lagu xiray. Xageen u wadnaa? ma odayga 70 jira dalkan ku raaxaysanaya, anigaygii madaxa soo qaaday iyo intay la midkaana gacmahan saa u taagayna. boos kaliya maanta kuma lihi. qofka dhalinyarada maanta uu dhow laga yaabaa aabihii iyo meel inuu wax ku soo yara gaaray baa laga yaabaa inuu yiraahdo bal booska qaado, odayga kusoo tabcay de. laakiin ninka dhalinyarada maanta dalka tabcayo wax suufiya wax saas ugu xiray oo uruursanaya, booska ma gooyo boos. Idaynadeero iyo family inuu ku keenayo ana riyoola ayaana sidaan u magaray akayaa oo ma awoodno dib loo eego arrinka dhulka lagu noqdo, aad loo eego, la isku naxariisto, la soo dhaweeyo dalka barakadiisa iyo khayrkiisa. wallahi barakada iyo khayrka ku jirta marka yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. soo kuuliyo gobonimo ilaahay cadaweynaha jabiyo, warshado badan oo dalka loo soo geliyo lagu tabco oo la isku naxariisto oo horumarka laga wada shaqeeyo, oo markaas inuu barakoobin dalku inuu qaboobayo, roobku inuu shumayo, barwaaqadii iyo greenka iyo cagaarka iyo qudaarta iyo beeraha inuu tabcanayno, oo dhulkana dhib isbedelaya, naxariistu meel walba caamiyeelaysa. guuliyo gobonimo janalka koraa loo qaado.